nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ururka al-shabaab oo jab xoogan lagu gaarsiiyay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Hiiraan halkaas oo looga dilay maleeshiyaad aad u fara badan oo konton dhagar qabo kor u dhaafaya kuwaas oo meedadkooda ilaa hadda lagu hayo deegaanka Abuuray oo ugu dambeeyay deegaanadii laga saaray ururka al-shabaab haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Hiiraan iyo al-shabaab oo laga sifeeyay halkaasi argagixisada haatan awood ugu maharin mar kalena kuma soo qaldami doonaan markaasi ciidanka iyo dadka shacabka ee ku sugan gobolka Hiiraan waxaana ay firxadkooda ku sii qulqulayaan sida wararka aynu ku helayna dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya amaanka guud ee markaasi dowlad deegaanka oo si weyn loo adkeeyay deegaano dhowr oo ururka al-shabaab laga saaray iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ciidamo iyo hub laga daabulaya magaalada Muqdisho oo la geeyay magaalada Dhuusamareeb haddaba wararkii ugu dambeeyay ciidamada beesha Duduble iyo Murunsado oo ku wajahan deegaanada al-shabaab ay ku xoogan yihiin qodobadaasi qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaynu markaasi diiradda ku saaraynaa warka caawa sidoo kalena waxaynu eegi doonaa warbixin dheer oo xogo iyo macluumaad xambaarsan oo ku saabsan maxaa laga yiri dagaalka al-shabaab iyo dawladda ku dhexmaraya gobolka Hiiraan kaas oo maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya al-shabaabna markaasi hoog iyo halaag iyo jab xoogan halkaasi lagu gaarsiinayo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fisan ayna ku bilownay ciidanka xooga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaano dhowr oo ay ka mid yihiin deegaanka Abuuray Taardho Sagaalaad Geedsamo Inamey oo dhammaan hoos yimaada degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan degmada Buulaburde iyo deegaanada ku dhow ayaa muddo 10 sano waxa ay ku jirtay go'doon iyadoo hadda markaas ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dadka shacabka oo iskaashanaya ay ku guuleysteen in deegaankaasi go'doonka ay ka qaadaan isla markaana ururka al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa gabi ahaanba laga dhigay kuwa la laayay kuwa firxaday iyo kuwa gacanta iyagoo nool lagu dhigay ciidanka xooga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ee hormuudka waa dagaalka looga xoreynaya argagixisada al-shabaab ayaa soo bandhigay meedadka argagixisada iyo sidoo kale hubkii laga furtay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo xalay waxa ay markaasi howlgalo xoogan ay ka wadeen inta u dhaxaysa magaalada Beledweyne iyo Buulaburde halkaas oo al-shabaabka ku sugnaa qaarkood halkaasi lagu laayay dagaaladan xoogooda maanta dhacay ayaa mid ka dib markii xalay ururka al-shabaab ay deegaanka Abuuray ay ku laayeen dad shacab oo markaasi odayaal dhaqameed u badnaa kuwaas oo ku sii jeeday deegaano ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab oo la doonayay in dad shacab oo halkaasi markaasi dhibaatooyin fara badan ururka al-shabaab kala kulmayay laga soo furto argagixisada haatan wixii ka dambeeyay awood ugu maharin mar kalena kuma soo qaldami doonaan ciidamada xooga dalka ayuu yiri Dhame Cabdiqaadir Axmed Cali oo ka tirsan guutada 17aad ee Gorgor ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee maanta dagaalka xoogan la galay ururka al-shabaab xildhibaan Cabdi Maalig Cabdalla oo ku sugan deegaanka Abuuray oo laga xoreeyay argagixisada ayaa ka hadlay qasaaraha la gaarsiiyay cadawga iyo guusha u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed sawiro ku saabsan howlgalka ciidanka xooga ay ku sameeyeen deegaanka Abuuray oo 25 kiiloomitir u jira degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa la soo bandhigay halkaas oo lagu dilay in ku dhow 50 dhagar qabo oo ka tirsan argagixisada meedkoodana halkaasi lagu soo bandhigay shacabka ayaa dabaaldegaya waxaana isugu soo baxeen ujeedadka iyo waliba wadooyinka waaweyn ee deegaankaasi ayagoo ku dhawaaqaya al-shabaab waa laga adkaaday dhinaca kalena ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq waxa ay ka bilaabeen magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhow kuwaas oo ku sii jeeda deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada Galmudug ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa hadda ka ambabaxay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyagoo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaas oo ugu sii gudbi doonaan magaalooyinka gacanta ugu jira al-shabaab ee kala ah Ceel Buur Ceel Qooxle Ceel Garas iyo kuwa kale hoosaga deegaanadaasi ciidamadan ayaa isugu jira Haram Cadniise iyo kuwa military gaar ahaan ciidamada Gorgor iyo Danab waxaana ay u socdaan xoreynta deegaanadan oo ay soo sheegnay ee gacanta ugu jira ururka al-shabaab waxaa muuqatay inuu socdo qorshihii ugu dambeeyay al-shabaab dalka looga saari lahaa iyadoo dadka deegaankan ay ku kaceen kooxda isla markaana dhul badan markaasi ka lumiyay ciidamada dawladda federaalka ee laga waday magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa aad u hubaysan isla markaana gaadiid dagaal iyo rasaas xoogan wata kuwaas oo ku sii jeeda deegaanada Galmudug ee al-shabaab ku markaasi laga saaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor
oo kulan gaar ah la yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare ayaa waxay heshiis ku gaareen in ciidamo aad u fara badan oo gorgor haramcad iyo waliba niisa ka tirsan la geeyo deegaanada Galmudug si ay markaasi dagaal adag ula galaan ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena dagaalada u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xogaga Al-Shabaab ayaa tan iyo shalay ka socda deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Abuure ay ku dileen 30 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. wararka aynu ka helayna aagaas ayaa sheegaya in saakii uu dagaal ka dhex qarxay labada dhinac. dhanka kalena gaari ay saarnaayeen 4 qof oo 3 ka mid ay ahaayeen odayaal dhaqameed caanka gobolka Hiiraan ayaa waxaa la kacday miino waxaana halkaasi ku nafwaayay 3 ka mid ah dadkaasi. xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo matala odayaashan qaraxa ku dhintay ayaa Al-Shabaabka ku eedeeyay inay si bareer ah u beegsadeen dadkaasi rayidka. Khaliif Cabdi Cumar ayaa sidoo kale sheegay in dadku ku dhaawacmay qaraxa ay qaadeen Al-Shabaab isla markaana aysan garaneyn halka ay geeyeen. gobolka Hiiraan iyo maamulka Galmudug waxaa maalmihii la soo dhaafay ka socday dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegtay in 10 askari oo ka tirsan kuwa danab ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. warbaahinta Al-Shabaab ayaa sidoo kale ku warantay in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen 15 askari oo ka tirsan ciidamada danab ee uu tababaray Mareykanka. wasiirka amniga maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Al-Shabaab ay gaarsiiyeen jab xoogan waxaana xaqiiq ma ahan warka marin habaabin cadow hala yimaadaan ma jiro wax dhibaato ay ciidamada danab kala kulmeen Al-Shabaab waxaanay ku daboolayaan jabka la gaarsiiyay ayuu yiri Maxamed Khayre. weerarada intooda badan annaga ayaa qaadnay si aan u burburino fariisimahooda maadaama maalmihii u dambeeyay ay sare u qaadeen weerarada ay ku qaadayeen shacabka. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen gobolka Hiiraan jiha kaga beegan dhanka waqooyi galbeed waxay ku dileen 35 askari oo ka tirsan dagaalyahanada. wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa ku waramaysa in ciidamada xoogga dalka ay habeen Jimcaha kula dagaalameen deegaan ku dhow dhanka Abuure Al-Shabaab oo qiyaastii 25 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. inta uu socday weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo kuwa kale oo taageero u fidinaya caalamiga ayaa bilihii la soo dhaafay sare u qaaday howlgalada lagu sugaya amniga ka dhanka kooxaha jihaadoonka ee ka dagaalamaya gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa nageynta.